kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka waa 16 bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee caawa warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah afar ruux oo mid haweenay tahay oo qorsheynaya inay dilaan mas'uul ka tirsan dawladda federaalka oo lagu toogtay Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo si aan horey loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo iyo qorshaha uu u tagay oo la ogaaday qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland oo ka hor yimid dalabkii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ciidanka Jubbaland oo ka hortagay qatar al-shabaab soo maleegeen oo ku wajahneed magaalada qaska uu ka taagan yahay ee Kismaayo iyo doorashada Jubbaland dagaal iyo isku dhac bay qarka u saaran tahay waa warbixin xasaasi ah oo aan idinkaga diyaarinay doorashada Jubbaland ee ay isku hayaan musharaxiinta isbedel doonka iyo Axmed Madoobe halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan afar ruux oo mid haweenay ay tahay oo qorsheynaya inay dilaan mas'uul ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu toogtay magaalada Muqdisho iyadoo dhanka kalena maamulka gobolka Banaadir ay war ka soo saareen taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in maanta magaalada Muqdisho lagu toogtay saddex rag iyo haweenay doonayay inay agagaarka isgoyska Bakaaraha ee degmada Howlwadaag ay ku dilaan agaasimaha howlaha wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdi Gare taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sakiya Xuseen ayaa sheegtay in ciidanka ammaanka ee degmada Howlwadaag ay ku toogteen saddex rag ah iyo haweenay hub u siday kadib israasaaseen dhexmartay iyaga iyo ciidamada kuwaas oo doonaya inay dilaan agaasimaha ciidanka booliiska degmada Howlwadaag ayaa ku guuleysay inay ka hortagaan isku day dil lala beegsan rabay agaasimaha howlaha wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdi Gare israasaaseentaasna kadib waxay ciidamada toogteen dhagar qabiyaasha oo ah saddex wiil iyo hal haweeney oo hubka u siday ay tiri taliye Sagiya taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska weli si rasmi ah uma sii faahfaahin falkan hase yeeshee ay sheegtay in ciidamada booliiska degmada Howlwadaag ay ka hortageen falkaasi la doonaya in lagu dilo agaasimaha howlaha wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdi Gare dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdilaahi Tuulax ayaa ka warbixiyay falkii maanta agagaarka isgoyska Bakaaraha loogu toogtay saddex rag ah iyo haweeney doonayay inay dilaan agaasimaha howlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdi Gare goobta uu falkani ka dhacay ayaa waxa gaaray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdilaahi Tuulax iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdilaahi Tuulax ayaa sheegay in intii uu socday galka dadkaasi lagu dilay ay israasaaseen dhexmartay ciidamada booliiska iyo saddexda rag ay la toogtay iyo haweeneydii hubka u keentay waxa uu sheegay in raggaasi ay ahaayeen kuwa maalmahanba lagu raajoogay oo hay'adaha amniga Soomaaliya ay ka warhayeen balse ugu dambeyn maanta la toogtay iyaga oo doonaya inay dilaan agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada xilli uu ka soo baxay masjid uu ku tukanayay salaada Jimcaha geesta kalena Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa si aan horey loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo iyadoo qorshaha uu u tagay magaaladaasina la ogaaday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta gaaray Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ah madaxda jabhadda ONLF kaas oo hadda ka hor dawladda Soomaaliya ay ku wareejisay Itoobiya soo dhaweynta Qalbi Dhagax ee Kismaayo ayaa waxaa ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawlad goboleedka Jubbaland xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya isimada iyo waxgaradka Jubbaland iyo shacabka reer Kismaayo intaasi kadib Cabdikariin Qalbi Dhagax waxaa la geeyay guriga martida ee magaalada Kismaayo halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam booqashadu maanta magaalada Kismaayo ku tagay Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli magaalada Kismaayo ka socdaan olole ku aadan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha magaalada Kismaayo waxa ka taagan xaalad qasan iyadoo dhanka kalena halkaas ay isku hayaan musharaxiinta isbedel doonka iyo waliba madaxweynaha haatan talada haya ee Axmed Madoobe oo markii saddexaad isku soo sharxay
sida wararkaynu ku helayno Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa waxa uu ka mid yahay dadka u ololeynaya ama qayb ka qaadanaya ololaha doorashada madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo saaxiibo dhow ay yihiin. waxaa soo dhaweeyay Cabdikariin Qalbi Dhagax dad caan ka ah magaalada Kismaayo isla markaana si aad ay isugu dhow yihiin madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. isla wararka arrimaha doorashada Jubbooyinka aynu ku guda jirnay qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland ayaa ka hor yimid dalabkii wakiilka gaarka ee qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya. shalay wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee qaramada midoobe Ambassador James Iswan ayaa waxay tageen magaalada Kismaayo halkaasina ay kula kulmeen madaxda maamulka Jubbaland iyo musharaxiinta aan isdiiwaangelin iyagoo madaxda Jubbaland ka dalbaday in waqti kordhin loogu sameeyo xilliga doorashada isla markaana fursad la siiyo musharaxiinta mucaaradka aan isdiiwaangelin. hase yeeshee dalabkaas ayaa waxaa maanta ka hor yimid kana soo horjeestay musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee hore isu diiwaangeliyay iyagoo sheegay in marnaba aysan aqbalin in waqti kordhin loogu sameeyo doorashada Jubbaland. qoraal ka soo baxay musharaxiinta isdiiwaangeliyay oo ku midoobay magaca kudlada musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin in guddiga doorashooyinka ay ka gaabiyeen inay kala tashadaan geedi socodka iyo hanaanka doorashooyinka xaqna ay u leeyihiin kadib markii ay soo buuxiyeen shuruudihii musharaxnimo. waxaa kaloo ay qoraalkooda ku sheegeen in guddiga doorashooyinka ay sidoo kale ku dhaliilayaan in wafdiga ka socday beesha caalamka ee tagay magaalada Kismaayo aysan la socodsiin guddiga isla markaana ay muhiimad gaar ah siiyeen musharaxiinta gaar ah wata sida ay hadalka u dhigeen. ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Axmed Maxamed Islaam iyo iyaga ay u wada siman yihiin xaaladda Jubbaland isla markaana aysan aqbalin in dib loo furo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ayna u arkaan in lagu soo darayo dad ay si gaar ah u wataan. dhinaca kalena ciidanka Jubbaland ayaa ka hortagay qatar al-shabaab ay soo maleegeen oo ku wajahneed magaalada qaska uu ka taagan yahay ee Kismaayo. ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ku soo saareen miinooyin dhowr ah oo lagu aasay wadooyinka qaar ee gobolkaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxay sheegeen in howlgalka lagu soo saaray ilaa 5 miino kuwaas oo al-shabaab ay ku aaseen wadada u dhaxaysa deegaanada Bangaani iyo Kaban oo ah aaga degmada Jamaame halkaas oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab. miinooyinkan oo ay soo bandhigtay hay'adda nabad sugidda Jubbaland ayaanan saraakiishu sheegeen in wax dad lagu soo qabtay howlgalkaasi hase yeeshee waxa ay sheegeen in weli ay socdaan howlgalo kale oo ka dhana al-shabaab isla markaana lagu doonayo in deegaanada ay haystaan al-shabaab looga saaro. ciidanka ammaanka Jubbaland gaar ahaan cutubka u tababaran ka hortagga walxaha qarxa una taagan mar walba ka hortagga dhagarta argagixisada al-shabaab ayaa ka soo saaray miinooyinkan gooba ay al-shabaab geliyeen oo ah inta u dhaxaysa tuulooyinka Bangeeni iyo Koban waa aaga degmada Jamaame gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay'adda NISA ee Jubbaland. inta badan deegaanada iyo degmooyinka gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ka dhacay qaraxyo miinooyin nooca dhulka lagu aasaa kuwaas oo la eegtay gaadiidka ciidamada dawladda federaalka kuwa Jubbaland iyo Amisom iyadoo mas'uuliyadda qaraxyadaasna ay sheegteen al-shabaab. ugu dambeyntiina doorashada Jubbaland dagaal iyo isku dhac bay qarka u saaran tahay. haddii aan ka qiyaas qaadano jawiga siyaasadeed iyo kan ammaan ee hadda ka jira Kismaayo iyo sidii waxay u dhacayeen dhowrkii bilood oo la soo dhaafay gaar ahaan talaabooyinkii amar ku taagleynta ahaa ee uu qaaday Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu ku dhisay guddiga doorashooyinka xulashada oday dhaqameedyada iyo xildhibaanada ay odayaasha soo xuleen ku gacan sayridda talooyinka Amisom igad iyo ergeyga dhammaan qaramada midoobe u fadhiya Soomaaliya. talaabooyinkaasi oo ahaa in doorashada dib loo dhigo si musharaxiinta oo dhammeeyay uga qayb galaan in doorashada ay noqoto mid loo wada dhan yahay isla markaana u dhacda hab madax bannaan oo daahfuran kaas oo ammaanka tartamayaasha ay sugayaan ciidamo ka madax bannaan faragelin shisheeye iyo mid siyaasadeedba waxaana suuragal ah inuu dhaco isku dhac ciidan oo dhiig ku daatay isla markaana geysa khasaare iyo burbur hanti dadweyne iyo mid dawladeed labadaba. ilaa iyo haddana ma muuqato si loo baajin karo isku dhacaasi iyo fashilka siyaasadeed ee dhalan kara. maxaa Axmed Madoobe lagu eedeynayaa in isaga keligiisa soo xushay oday dhaqameedyo aan ahayn kuwii saxda ahaa oo matalaya beelahooda inuu amray oday dhaqameedyada uu isagu soo xushay in mid walba u keena 3 qof oo mid ka mid ahi ka dhigo xildhibaanka beesha inuu diiday in doorashada u dhacdo hab daahfuran oo ka madax bannaan faragelin cadaadis caburis hanjabaad iyo amar ku taagleen in doorashada ku dhacdo meel ka madax bannaan faragelinta maamulkiisa in garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka mamnuucay mas'uuliyiinta xilalka
ka haysa ama taabacsan dowladda dhexe isla markaana raba inay ka qayb galaan tartanka inuu diiday in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay ku lug yeelato habka iyo hanaanka doorasho Jubbaland u dhaceyso inuu garab siyaasadeed iyo gaashaan ciidanba ku dhigtay dowlad iyo shakhsiyaad cadow ku ah midnimada madax banaanida qarannimada iyo sugidda xuduudaha Soomaaliya ee sharciga maxaa ka qaldamay dowladda dhexe kadib markii ay ku guuleysatay saameyntii ay ku yeelatay doorashadii koonfur galbeed tii galmudugna ay door muuqata ka qaadatay dowladda dhexe waxay isa siisay kalsooni ah in tan Jubbaland ay saameyn ku yeelan karto laakiin sidii ay qorsheynayeen ama rabeen wax uma dhicin Axmed Madoobe waxa uu garab ciidan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ka helay Kenya oo dowladda farmaajo cadaadis ku saartay inay ka laabato dacwadii badda madaxweynaha xilligan ee maamulka Puntland Senator Farole iyo Senator Umar Abdirashiid madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo dhammaan mucaaradka dowladda iyo Khayre ayaa waxa ay taageereen dowladdan waxa isweydiin leh hadii Axmed Madoobe mar kale noqdo madaxweynaha Jubbaland ma u sameyn doonaa wax alla wixii Kenya ay rabto ama ka dalbato maamulkiisa maadaama ay si buuxda oo aan qarsooneen u garab istaagtay inuu ku guuleysto doorashada maxay siin doonaan taageeradooda guud ahaan warkii aad kala socoteen kulanka wararka waa naga intaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino waana mahadsantihiin